waa sheeko cajiiba oo ciwaankeedu yahay tuugii alla ka cabsiga badnaa. waad qosli doontaa waadna yaabi doontaa. mubaarak khayraad official subscribe saar gambalelkana furo muuqaalkan share garey. waxaa la sheegay in wiil dhallinyaraa oo alla ka cabsi badnaa laakiin uu xoogaa hilmaana ku jiray uu cilmi ka bartay sheekh ka mid a culimada ilaa uu heer ka gaaray. sheekhii oo xirtiisa u dardaarmahaya ayaa yidhi ha baryinina dadka maxaa yeelay caalimka gacmaha u taaganahaya dadka adduunyada wax khayra kuma sugna. mid kastoo idan ka mid a ha tago oo ha ku mashquulo shaqadii iyo sancadii oo aabihiis ku mashquuli jiray ilaahayna ha uga cabsado. wiilkii dhallinyarada ahaa ayaa hooyadiis u yimid wuxuuna ku yidhi maxay ahayd shaqadii uu aabbahay ku mashquuli jiray. way garaacday waxayna ku tidhi aabbaha wuxuu u guuray raxmaddii ilaahay maxaad ka rabtaa oo aad u raadsanaysaa shaqadii uu ku mashquuli jiray. hadalkii ayuu ku adkeeyey iyadoo diidaysa. ugu dambayntii way u sheegtay iyadoo ka xun inuu aabihiis tuug ahaa. wuxuu ku yidhi hooyadii sheekhu wuxuuna amray inuu qof kastaaba ku mashquulo shaqadii uu aabihiis ku mashquuli jiray uuna ilaahay uga cabsado. waxay tidhi halaagaagee tuugnimo miyaa alla ka cabsi leh. wuxuu yidhi sidaas ayuu shaykhuna yidhi. wuu baxay wuxuuna soo ogaaday qaabka ay tuugadu wax u xadaan. wuxuu diyaarsaday kaartadii tuugnimada kadibna salaadda cisha ayuu tukaday. wuu sugay ilaa ay dadku ka hurdeen wuuna baxay si uu ugu mashquulo shaqadii aabihiis. wuxuu ka bilaabay gurigii dariskiisa wuxuu damcay inuu galo laakiin wuxuu xasuustay inuu sheekhu kala dardaarmay alla ka cabsi. wuxuu yidhi alla ka cabsiga ka mid maahan in dariska la dhibo. wuu ka soo gudbay gurigii wuxuu soo maray guri kale. wuxuu naftiisa ku yidhi tani waa guri agoomeed ilaahayna wuu xarimay in la cuno maalka agoonta. wuu socday ilaa uu gaaray guri uu leeyahay nin taajir ah wax waardiyaana aysan joogin. dadkuna ay og yihiin inuu haysto maal dantiisa ka zaa'id ah. wuxuu yidhi alla ilahay halkan. albaabkii ayuu ku furay furayaasha loo diyaariyey wuuna galay. wuxuuna helay oo arkay guri waasaca iyo qolal badan. wuu warwareegay ilaa uu helay meesha ay xooluhu yaaleen. wuxuu furay sanduuqii wuxuuna ku arkay in badan oo dahab iyo fidlo iyo lacag badan ah. wuxuu damcay inuu qaato laakiin wuxuu yidhi ma uusan bixi jirin xoolahan sakadooda marka hore waa inaan bixiyaa sakada. wuxuu soo qaatay buugaagtii wuxuu shitay faynuus yar. wuxuu gudagalay inuu buugta akhriyo oo xisaabiyo aad ayuu xisaabta ugu xeel dheeraaye. xoolihii ayuu tiriyey sakadiina wuu xisaabiyey qadarkii sakadana meel ayuu iska dhigay. xisaabtii ayuu aad ugu sii xeel dheeraaday ilaa ay tageen saacado. carraduu fiiriyey sawaaba subxigii. markaas buu yidhi alla ka cabsigu waa in marka hore salaada la hormariyo. bannaanka ayuu u soo baxay baraagta ayuu ka weysaystay. salaaddii ayuu aqimay. waxaa maqlay ninkii guriga iska lahaa wuxuuna arkay cajab. wuxuu arkay la yaab faynuus ifayda sanduuqiisi lacagtoo furan iyo nin iska tukanaya. xaaskiisii ayaa tidhi waa maxay waxaan. markaasuu yidhi wallaahi ma ogi. wuu u yimid wuxuuna ku yidhi adigu yaa tahay waa maxase waxaan. tuuggii ayaa yidhi marka hore salaada kadibna hadal. soo weysayso salaadda naga bixi maxaa yeelay imaamnimada waxaa iska leh ninka guriga leh. ninkii guriga lahaa wuxuu ka cabsaday inuu tuuggu hub wato wuxuuna sameeyey wixii la amray ilaahay baa og siduu u tujiyey. markii salaadda laga baxay ayuu yidhi ii sheeg adiga yaa tahay sha'nigaaguna waa maxay. tuuggii ayaa yidhi buugaagta ayaan akhrinayay waxaana xisaabinayay sakadii aadan bixin muddo 6 sano ah. waan xisaabiyey waana soocay si loo siiyo dadkii mutaystay. ninkii guriga iska lahaa yaab dartiis wuu waalan tegay. wuxuu ku yidhi halaagaagee yaa kuu sheegay maad waalan tahay. tuuggii wuxuu u sheegay khabarkiisii oo dhan. markuu dhagaystay oo uu ogaaday siduu xisaabta u yaqaano wuu baxay. xaaskiisa ayuu la hadlay waxaa u joogtay gabar. wuu soo laabtay wuxuuna ku yidhi ka waran haddaan ku siiyo gabadhayda oo kaa dhigo qoraagayga iyo xisaabiyahayga oo aan dejiyo adiga iyo hooyadaaba gurigayga kadibna aan kaa dhigto saaxiibkay. wuxuu yidhi waan aqbalay. waagi ayaa baryey wuxuu soo waday markhaatiyaal gabadhiina wuu ku xiray. biliis subscribe tahay hilmaamin gambalelkan furo.